Qisadan waxay ku dhacday wiil curyaan ah oo xaaskiisa uu ku guursatay curyaannimo markii uu qurbaha keenay ku jisaartay oo diiday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaamo walaalaha igu qaaliga ah meel walbo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada channelkayga. Halkaad igala socotaan waa Fahima Channel. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay. Maanta qisada idin wado waxay ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Faransiiska. Wiilkan ayaa qisadiisa waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. Aniga oo Soomaaliya jooga ayuu dhahay ayaa waxaan isguursanay gabadha intii aan isguursan ka horna dad la isku qasbay ma aheenin oo dad isfahmay wada sheekaysta iska hela ayaan ahaynay. Aniga lugaha ayaan wuxuu dhahay curyaanka ah oo ma socon karo. Gabadha markii ay guursanaysay waa i ogeeday in aan ahay qof curyaan ah, hase ahaatee niyadda maysan iga jibin oo waxa ay igu tiri haddii lugaha aad curyaan ka tahay qalbiga ayaadan curyaan ka ahaynin. Gabadhii waa isguursanay, reerkeed ayaan ka doontay, kaala arag wuxuu dhahay nolol maasha Allah oo jawi degan ayaan galnay, wax dhibaato maysan jirin. Waxa uu dhahay gabadhii waxa ay ii dhashay canug. Annagoo jawigaas degan isaga jirna ayaa walaalkay oo jooga Ingiriiska waxa uu igu yiri leen ayaan kuu gadayaa oo gabar ayaa kuu imaan doonta oo dacwo kuu furi doonta. Waan ka ogolaaday buu dhahay walaalkayga. Kadibna gabadhii ayaa ii imaaday, sawiro iyo fiideo iyo waxbaan galgalna ayuu dhahay. Dacwadii ayay bilowday gabadhii inay ii xareyso. Alxamdulillaah ayuu dhahay dacwadii ayaa ii soo baxday waxaana imaaday Talyaaniga kuma hakanin ayuu dhahay waan ka sii tagay oo waxaan tagay Faransiiska ayaa iska dhiibay. Markii aan tagay waan qortay ayuu dhahay xaas iyo canug inay ii joogaan. Halkaas ayaa muddo ku noolaa. Runtii muddo kadib waxaa ii suurto gashay oo muxuu dhahay ii hagaaga leen ah in xaaskeyga iyo canugii iga maqnaa aan u dacwoodo oo aan Faransiiska keeno. Waxa uu dhahay xaaskeygi way imaaday intii aan kala maqneen oo ayada ay ku maqneed ayuu dhahay Afrika ana aan Yurub joogay. Wax dhibaato nagama jirin ayuu dhahay. Biilkeeda ayaan u dirayay, waan ismaqli jirnay, si aad u wanaagsan oo qurux badan ayaan u wada sheekaysan jiray ayuu dhahay. Wax yar oo dhibaato haba yaraatee kama taban ayuu dhahay. Ayadana sidoo kale dad isku qanacsan oo isku faraxsan oo nolol aad u wanaagsan ku jiro ayaan ahaynay. Gabadhii wuxuu dhahay markii aan u dacwoodo oo leenkii ii hagaagay waxaan keenay buu dhahay canugeygii iyo xaaskeygi Faransiiska. Waxa uu dhahay kadib nolol ayaan iska galno oo nolosha Afrika iyo nolosha Yurub ay kala duwan tahay. Aniga ma shaqayn jirin ayuu dhahay, iskuul ayaan aadi jiray, hase ahaatee ayadana markii ay imaado waxay aaday ayuu dhahay inay luqadda wadanka ee barato. Canug yarna waa uu noo joogay. Muddadii aan Faransiiska joognay canug kale ayaa ii dhashay ayuu dhahay. Uur ayay qaaday, canug ayaa ii dhashay. Sidaas si lamida waxa uu dhahay waxna xaaskeyga kama tabanaynin ayadana igamaysan tabanaynin. Hase ahaatee muddo kadib annaga oo 2 canug noo joogto ayaa waxa uu dhahay gabadhii xaaskeyga ahayd waxay bilowday isbedel aad u fara badan. Markii ugu horeysay wuxuu dhahay guriga qayli buuq wuxuu dhahay waxay leedahay hawsha guriga waa inaad qaybna qabatid, barna waa inaad qabatid, barna waa inaan aniga qabto. Waxaan ku dhihi jiray buu dhahay waa ii jeedaa in aanan socon karin oo aan ku soconayo gaariga curyaaminta loogu talagalay. Hase ahaatee wixii aan awoodo waa idinka caawinaya oo idinma hagranayo. Marka wuxuu dhahay xaaskeyga saaxiibo ayay yeelatay, asxaab ayay yeelatay. Asxaabtii iyo saaxiibadii ayaa igu soo dirdiri jiray oo igu kusoo dhihi jiray ninka curyaanka maxaa ku ag dhigay hadduusan banaanka haddaa isku soo raacdaan waa lagu fiirfiirinayaa. Waxaa lagu leeyahay naag hiblaayo ninkeeda waa curyaan, ninkan ka har. Adiga wuxuu dhahay gabadhii waa la soo buufiyay. Ayaantii hore wuxuu dhahay buuq fara badan ay kicisay. Waxay dhihi jirtay waa in maxay ahayd hawsha guriga qabatid, caruurtii bay iiga tagaysaa ayuu dhahay. Sidoo kale wuxuu dhahay habeenadii aroosyada iyo xafladaha iyo meelahaas iskaga soo daahe. Haddii aan la hadlo oo dhowr walaale meeshaan waa qurba maxaa kugu dhacay sidaan ma aha maxaaba ila hadlaysaabo. Adiga qofkii waa uu isbedelay ayuu dhahay. Gabadhii gabar kale noqotay waana dareemay ayuu dhahay in asxaabteedii iyo qaar kale oo ehelkeeda meesha joogaan ay soo buufiyeen. Gabadhii waxaa dhacday oo dhahay adig inay beerta iska gashay oo gabdho kaleeta ay buufiyeen.
awal wuxuu dhahay qaylo iyo buuq leh ku jirno laakiin way ka darto dhahay waxay bilowday inay gabsaarkii tuuratay timaheeda iska qaabsato xafladaha aroosyada iyo meelahaas ay aado labadii canugna ay iga dhaqaaqdo bas wuxuu dhahay caruurteeda inaa haysto dhib uysan igu hayn laakiin xaaskeyga oo timihii banaanka keensatay waxaan dareemayo dhahay xoogaa yar inaysan aad ila wanaagsanaynin oo dhahay nin kastana ma ogolaanayo xaaskiisa isqaawisa siiya sirwaal gashatay uu dhahay aniga ahaan waa ii cuntami weysuu dhahay habeenad kamida baa sheekeysan waxaan ku dhaha buu dhaha walaalay sidaada hore matid ee halkeed u socotaa waxa uu igu dhahay waxa ay xaaskii ku jawaabtay meeshaan waxaa la dhahaa Yurub free ayaan ahay waxaana rabaa inaan nolol xornimo leh ku noolaado qaylada iyo buuqa iyo warka badan iga jooji sidaan haddaad igu haysanaysid igu hayso haddii kalena awalba dhib baan kugu qabay qofkan cadka ahoo meel saaran baa tahay madaxeyga isii aniga qayle iyo maxaa la dhahaa habeen kasta intee jirtay intee aaday maba rabay tiri aniga yaaba iga soo haray oo dhahay wuxuu dhahay saas markay igu tiri waan xanaaqa waxaan ku dhahay oo dhahay haddii aad rabtid inaan ku furo waa inaa lacagtii aan kugu keeno halkaan aad maxay aheeto aa iska bixisaa aniga waxaan kugu keensada halkaan inaa isla noolaan oo xaaskeyga aad tahay haddaad igu jisaarto waa inaa dhaqaalihii aan kugu soo baxshay ii soo celisaa waxaa igu tiri way dhahday shalay aniga miyaa isoo wad ku dhahay waa may adigaa isoo kaxeeyey maantana lacag iska daayay waxaan kuu haya ma leh caruurtaada hayso oo korso haddii kalena hadda adigay kugu taalla xataa caruur ma rabo adiga wuxuu dhaha waan kala tagnay caruurtiina ayadaa qaadatay oo dhahay meel kale bay degtay magaaladii aan isla joogno way ka guurtoo dhan magaalo kale degtay gabadhii sideedii uunbee wuxuu dhahay iska sii aheeday oo beerteeda ayaa iska sii gashay qof la hadlaysa iyo qof ay warka maqlaysa ma jirinin wuxuu dhaha anigana qofkaas iska curyaanka ah uunbaa ahay marka wuxuu dhaha walaalahayga dhibkaas ayaa igu dhacay gabadhii xaaskayga aheeday aan kusoo tacabiyo tiir beele oo aan sugayay oo aan islahaayo dhaha markay qurbaha imaado nolol kale ayaad geli doontaan maysan noqonin oo dhaha maysan dhicinin anigoo jecel oo rabo oo caruurteeda hooyadood ah ayay gabadhii halaawday oo isbedeshay haddana anigoo jecel oo weli saasta ee tahay isbedelkeeda aan ku nicin ayay iga codsatay in aan furo ayuu dhahay marka walaalahayga dhibkaas ayaa igu dhacay oo dhahay wiilkan walaalkeena ee ku nool wadanka Faransiiska marka wuxuu dhahay xaaskii waan kala tagnay guri ayaan deganahay laakiin weli wuxuu dhahay qalbigeyga kama bixin oo waxaan iska jeclaan lahaa oo dhahay inay caruurteeda hal meel kula noolaado waa dareemi kartiin ayuu dhahay mar haddii caruur iyo waalidkood ay kala fogaadaan waxa ay dareemi karaan marka wiilkan wuxuu dhahay weli xaaskeyga waan jeclahay waana rabaa inaa caruurteeda markasta wuxuu dhahay agtooda kasoo kaco wuxuu dhahay xaaskiina waa i diiday oo dadkeeda ehelkeeda qeyb kamida iyo sidoo kale asxaabteeda oo ay isku barteen qurbaha ayaa igu direen oo ku dhaheen ninkaneeti curyaanka maxaa ku ag dhigana hiblaayo ka carar camal marka wuxuu dhahay dhibkaas ay haysto xaaskeyga waan rabaa ayadina waa i diiday maxaa igula talin laheedeen inkastoo calafka dhammaaday maxaa leedihiin ayuu dhahay wiilkan walaalkeena marka asxaabay dhankiina ayaan tala ka sugaynaa waa mahadsantihiin talawaatii alle sidoo kale wiilka qisada ila soo wadaaga wuu mahadsan yahay waa idin mahad celinaya dhammaantiin sidaas iyo waxaa idin leeyahay taladiin ayaan sugaynaa muuqaalka xigo intaa ku kulmeyno nabadgelyo